السلام عليكم كسودو جنوك هدو تاجر هدي أنا نقول عصب تاخذنا سبسكرايب قري هدي أنا نقول عصب بين أصحاب تصدق هذا يس ما أنت برنامج كأنه واحد لتكون مسافة وحكي أساسا إن عندك جواب سؤالها قروح البناء عيسى وضرتين مركي عن إني كوجو صقر كوميونتي ويدي سؤال محا سؤال إني كجا جواب يس سؤال في عن سؤال أو عاد وفي عن عربي لها إنا كل فيديو وسمية أيوة حيسوي دي ولا الكي شعيب 8pack marka su'aashiisana waxay ahayd ma inoo sheegi kartaa 5 coins 5 coin oo aan maalgashi ku sameyn karno 2021 ama wuxuu dhahay maxay tahay 5 coin oo ku haboon aan maalgashi ku sameysan karno 2021 okay haddaba marka aniga coinska markaan aan kala macneynayo ama aan kala doorno ama investment aan ku sameynayo sida marka stock marketka aan u fakaro ayaa xagan u fakara ini karo idin kula talahay inaad sidaas u fakartiin haddaba sidii u fakara horta ama shirkad ha ahaato ee fikrad haysato ama crypto ha ahaato team kasta ama qof kasta ee maanta rabo inuu wax bilaabo wuxuu u bilaabo ujeedadiis waxay tahay wax buu rabaa problem jiro inuu xaliyo rabaa markasta waxa xoog saartaa inaad fiirisid shirkadan aad maalgashi ku sameynaysid ama coinkan xataa iska shirkada aad maalgashi ku sameynaysid maxay tahay waxa ay rabaan inay xaliyaan yani problemkee rabaan inay xaliyaan adduunka ku soo kordhiyaan oo kaleeto marka taas ay isweydiisa jawaabteeda ay heshid yani xalkan ay wadaan ma tahay mid adi aad aaminsan tahay oo aad ku qancay sidoo kaleeto sidoo kaleeto bitcoin kaleeto ama coinyada badankooda waxay rabaan inay xaliyaan waxay arkayaan wax system centralized oo markasta lagu sameeyo dawladeed oo kaleeto iyagana ay dhahayaan kale systemkan dawladda badanaa looma baahno decentralized aan ka dhigi karnaa marka xalka badanaa ay wadaan way kala duwan yihiin oo mid wuxuu rabaa inuu xaliyo baaki smart contracts mid wuxuu rabaa inuu xaliyo transactionyada sida bangiyada kaleeto yani waxa ahaata xalka ay wadaanbo laakiin muhiimadu waxa inay decentralized ay tahay oo looga markasta laga kaaftoomayo third party yani in oo ani adiga marka macaamilooneyno third part aan ka kaaftoono xalka badankooda ee coinska ay haayaan taasi u badan tahay oo waxaan central systemka aan dhaxmareyno inta laga baxo oo central systemkaas oo markaas hal ama laba qof ee hoggaanka ama maamulka ay haayaan inta ka baxno oo aan wax decentralized oo ani adiga toos aan cidna third part aan la xiriirin aan waxaan u xalsan karno inayna gaarsiiyaan marka يعني حلق بدن كود decentralized نوعاس أي وضعن إيوه مركز نسيك على ميت كستو أو فوكس أو صاراي برانجيال كلا دوان أو حلقونية أو سيدس أو وضع مركز سيدا أد شركة أو مركز أد تسلا العكو درسني سيد أد أو آميسن تهي أوكي تسلا أدون كهدر شركة دوين ككلات واحد دواني كانت أو بجواري أو يعني شدال لو استعمالين أو كورنتو كوسعنايو كانت أو مستقبل كان aaminsan tahay hadda wixii ka dambeeyo gaariyaasha shidaalku way unsii yaraanaya dhanka korontada loo guuraya markaas waa og tahay maalgashi hadda maad ku samaysid beri inaad ka faa'iidaysid coinkan waa sidoo kaleeto maxay xalinaysaa oo halkaan oo hadda ee dadkan ay soo bandhigeen ma tahay wax aad mustaqbalka aad aaminaysid oo loo baahan yahay oo hadda wixii ka dambeeyo in lagu sii batamaahine aan laga suuleyn yani marka supply and demand sidoo u yaala muhiim ah hadeer in demand uu weyn yahay laakiin at least ma aamini kartaa the next 5 years the next 10 years waxaan baahid loo qabo inay sii balaarato maahini aysan yaraanaynin so marka waxa waaye maxay xalinaysaa kooga horeeto xalkoodan xal ku qanacsan tahay ma tahay sidee supply and demand u yaala sidoo kale teamka ka dambeeyana waayo يعني teamka ka dambeeyo muxuu yahay team aad ku qanacsan tahay miya wax soo saarkooda aan scandals badan aan lahayn oo yani team adag ma yahay kadib يعني qodob saas oo kale marka aad fiisa iyo maxaafad inaad sidoo kale aad la socotid heerka ay marayaan oo kale beejadoodii iyo markasta aad wixii aad update asi ahaatid yani waa sida ay sheegay qodobada aan u maro waa un kan stock marketka wax ma ka duwano sidoo kale aniga arinkan oo cryptoga investmentigeyga badan ee weynka aan sameeyo
ayuu qayb kamida uu yahay kaligeeda investment kuma sameeyo yani waa markasta muhiim ah kuta investment marka sameynaysid inaad balaarisid investmentigaaga oo hal meel leesan u badneen oo meesha juka soo gaartay aan qasaareynin oo aad inta percentage keysatid inta percentage keys aniga marka stock market ka hadii 80% igu jirto 10% amal waxay igu jirtaa cryptoga marka saasaan aan u kala maareeyaa hadaba marka coinyaasha Ja. Att vi har den här. Nej, men han kommer ändå, han skulle ju hämta mig. Så är de klara? Den här är klar, ja. Ha, okej, men då kan du säga till honom. Nej. Yes. Ha, men jag är klar, jag kommer avrunda det här. Jag tänkte jag passa på att göra en video emellan. Du är så toppen. Yes. Marka Kuwee ayaa investment aan ku sameeyay Kuweena la dhihi karaa top 5 ka horta ani waxa investment ku sameeyay Bitcoin waxa investment ku sameeyay Ethereum waxa investment ku sameeyay Litecoin waxa investment ku sameeyay Cardano waxa investment ku sameeyay Chainlink iyo waxa sidoo kale investment ku sameeyay oo hadda dhow soo baxday isbuuci la jirto internet computer waa mid ugu dumay laakiin xal fiican ay idan ay heesa sidoo kaleeto si oo joke yani tijaabo iska qosol oo trendiga iska raac iyadana waxaan investment ugu sameeyay mid la dhahayo Dogecoin marka hadaba marka inta kuwan investment ku sameeyay Kuwee ayaa shanta ugu fiican aan isdhahayo ay yihiin shanta ugu fiican aan isdhahayo marka waxa waaye Bitcoin ma la ilaawayo waaba crypto laantiisa ma jirtaba waa crypto waxa soo aan bixiyay Bitcoin of course sidoo kale to Ethereum ama Ethereum ka iyadana sidoo kale to midkii labaad Cardano iyadana sidoo kale to Chainlink iyo Cardano waxa dhig kala isku meel joogan iska booska afraad booska afraad ha nee booska afraad ma nee booska afraad ha after Cardano ku soo xigan internet computer iyadana booska shanaad hadda shan xabas looga fakaray laakiin Litecoin aadan asigana investment waqti hore marka horeynta Bitcoin bilaabay waa saddex ku bilaabay Bitcoin Litecoin iyo Ether marka asagana wali investmentigiisa waan haystaa marka kuwaas ay investment ku sameeyay aan update kooda aan la socdaa aan isdhahayaa mustaqbalka yani fikradaha ay haayaan iyo xalka ay haayaan mustaqbalku waa wax loo sii badanayo dhankaas ma ahan sida aan isdhahayo iyo baaritaanka iyo update-ka isku sameeyo kale ay sheegayso in xalkooda loo batamaahina ma ahan waxaan loo baahnayn waxa ku soo hartay Dogecoin xitaa arkay su'aalo ka iimaanay haday Dogecoin faahfaahin weyn ka soo sameey Dogecoin yani ma ahan coin oo xal hayso waxa jirto hadda maanta la joogo wax ka badan 4,000 oo crypto coins 4,000 yani ma yaro 4,000 crypto coins yani mid kasto islaan kasta intee baxday oday kasta intuu baxayo crypto coin sameeyna yiraahdeen laakiin macnaheedu ma ahan iyaga dhan inay wada yihiin wax effective ama xal fiican ay wadaan marka qofkii kuwii Dogecoin ka dambeeyay si ay cadbaaki maxaa lahaa dacaayad ugu sameeyaan ama joke uga sameeyaan coinyadan tirada badan iska soo daba baxbaxaayo ay marka Dogecoin taas ay ku timaadeen sidaas ay ku timaadeen Dogecoin xal ma haayo loo xitay markii oo imaanay looguma taragelin inuu xitay caan noqdo ama wax weyn oo noqdo waxa uu loogu taragalo in la dhaho bal fiiri oday kasta habar kasta meeltay soo fadhiisatay coin ee la soo baxday ayaanta oo lagu daatay yani afka bulshada iska qabsatay marka waa wax saas andanka bacdi joogiya marka iska batayo memes iska noqdo meel kasta ku dhacay and then influenceryaal waaweyn oo kamid yahay Elon Musk oo kamid yahay Elon Musk ayaa bahashi ka hadalkeeda bilaabo oo cirka sii geliyay marka
so marka adigana saasoo kaleet inaad ugu maaldarsanaysid oo iska arrinkan meesha ku dambeysay iyo markay shirkad ka hadasho ama qof la yaqaan uu ka hadlay cirkay gashaa haddana marka la aamusan waa iska okay iska noqotaa haddii aad saas aad sameynaysid dee waad sameyn kartaa oo dadweynaha kusoo biiri kartaa oo joogaas dhinac ka wada jiro laakiin haddii aad maalgashi ahaan aad u maalgashanaysid oo mustaqbal aad ka leedahay dee ogow hadda maantadan la joogo coinkaas waxay xalinaysana ma jirto sidoo kaleetana supplygiisa maba dhammaado maanta oo dhan maalintiiaba inta soo baxayso coin oo dogecoin ama cadadna wala xisaab ay tahay waadna dareemi kartaa haddeen maxaa wax qaaliyey maxaa qaaliyey rabisti iyo wixii yaalay inay ama isla eg tahay ama ay rabisti ay badan tahay laakiin haddii waxaan maanta oo dhan warshad inta iska furmatay iska butaacinayso iyadoona markaas wax ku dhisneen xal goonina uusan haynin dee adaaba fahmaysid qiimo gooni inuusan lahayn so qiimihiis wuxuu ku xiran yahay inta kaliya meediyada ay ka hadlayso meediyada haddii ka aamusto dee qiimo kaleeta ma laha marka arrinka dogecoin kaas ayni ka sii haddii aad dogecoin aad rabtid inaad video gooni aan uga soo hadlana iyadana iga soo dalbado insha allah waa kasoo hadli karaa waa kaasa sidoo kaleeto dad baa i weydiinayo dad baa isoo qoray meel aan ahayn Coinbase oo laga gadani kara ma jirtaa Coinbase waa inoo shaqeyn laadahay waxaa jirto Binance waa ka gadan kartiin Binance ama Soomaali joog ama Africa joog ilamaha inuu kala jecel yahay waxa kaliya oo ma kugu khasbay inaad sameysid inaad passport iyo ama ID card iyo waxyaas kale aad ku buuxisid laakiin haddii aadan macluumaadkaas aadan ku buuxin limitation uu leeyahay jiro aadan $100 ka badan miya ma qaani mase $150 ma xasuusti ka badan aadan investment aad sameyn karin hadaa ka badan aad sameynaysid waa in aad markaas aad processka rasmiga aad martido isa soo cadeysid yani aad qofka tahay aad cadeyn kartid iyo waxyaalahaas kaleeto yes sidoo kaleeto Binance aad u fudud yahay inaad furatid sida aad Gmail-ka ama Facebook ama Instagram-ka ama YouTube-ka aad u furatay account-ka appkiis aad u fudud yahay aad u furan kartaa dad badan arkay oo dhahay tutorial ma ka sameyn kartaa marka badan videoyaasha tutorialka ani ahaan boring ila tahay so saas darteed aad uma jeceli inaan sameeyo especially hadaysan dad tira badan ay soo weydiin marka kastoo yiri labada waxba meeshan arkay tutorial Binance ka sameey dhahayso marka aad u fududahay ka baqin isku taxluuji inaad furitid hadii markaas ka bacay ay kugu adkaato marka isku taxluuji kadib ay kugu adkaato aad fahmi weysane isoo qor insha Allah waan sameeynaa marka tutorial